baasaboorada dadka adduunka qaarkood waxa ay u yihiin shay muhiima oo loo baahan yahay inuu mar walba diyaar kuu ahaado, halka dad kalena ay u arkaan caqabad hortaagan socdaalka. bogga wax ka qora arrimaha socdaalka caalamka ee Henley Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadyada caalamiga ah ee IATA ayaa sanad walba soo saarta liis muujinaya baasaboorada adduunka iyo sida ay ugu kala horeeyaan fududeynta safarada. Haddaba baasaboorka Soomaaliga ah sanadkan xaguu ka galay liiska dalalka adduunka? mowduucan ayaa rabnaa maanta inaan ku falaqeyno barnaamijkeena Xogdoon. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka ayna tahay markii kuugu horreeyay oo aad soo booqatid, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saartid, sidoo kale inaad muuqaalka like dhahdid si uu dad badan u gaaro. Muhiim ayay noo tahay. ku soo dhawow muuqaalka oo faahfaahsan. baasaboorka waddanka Jabaan ayaa mar kale sanadka 2021 kaalinta koowaad ka galay liiska baasaboorada ugu awoodda badan caalamka. Marka la eego inta waddan ee lagu tagi karo dalkugal la'aan ama dalkugal lagu qaato isla garoomada diyaaradaha ee dalalka loo safro. Haddaba aan isla eegno saddexda baasaboor ee ugu awoodda badan caalamka. Markaan ku leeyahay ugu awoodda badan, waxaan ula jeedaa awoodda uu baasaboorkaas u leeyahay in lagu galo dalal fara badan iyadoo aan loo baahnayn wax dalkugal ah. Haddaba saddexda kaalmood ee ugu horreeyda waxaa ku jira Japan, Singapore iyo South Korea oo dhammaantood dhaca hal qaarad oo ah qaaradda Asia. sidoo kale baasaboorka Jarmalka ayaa kaalinta saddexaad la cariirsanaya midka Kuuriyada Koonfureed. liiska sanadkan ayaa la mid ah kii sanadkii tagay ee 2020 kaasoo uu soo saaray isla boggan Henley, gaar ahaan marka la eego kaalmaha hore iyo kuwa ugu hooseeya intaba. dadka haysta baasaboorka dalka Japan ayaa dalkugal la'aan ku tagi kara baasaboorkooda ilaa 190 dal oo caalamka ku yaala, waxaana ay dalkugalka heli karaan meesha ugu horeysa ee ka galaan dalkaas. muwaadiniinta waddanka yar ee Singapore oo sidoo kale ku yaala qaaradda Aasiya ayaa iyaguna dalkugal la'aan tagi kara ilaa 190 waddan oo caalamka ka tirsan. bal iminkana aan isla eegno 10 kaalmood ee ugu horeeya liiska la daabacay 2021. liiskan waxaa xusid mudan in hal kaalin ay isla wada geli karaan wadamo fara badan iyadoo loo fiirinayo inta dal ee lagu tagi kara baasabooradooda. nambarka koowaad waxaa ku jira sidaan hore u xusnay Japan, waxaa lagu tagi karaa baasaboorkooda dalkugal la'aan 191 dal. nambarka labaad waxaa ku jira Singapore, waxaa lagu tagi karaa 190 dal. Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka ayaa ku wada jira nambarka saddexaad, waxaana baasaboorkooda lagu tagi karaa 189 dal dalkugal la'aan. nambarka afraad waxaa ku wada jira wadamada Talyaaniga, Finland, Spain iyo Luxembourg. baasabooradoodana waxaa lagu tagi karaa 188 dal bilaa visa. nambarka shanaad waxaa ku wada jira wadamada ah Denmark iyo sidoo kale Austria. baasabooradoodana waxaa lagu tagi karaa 187 dal dalkugal la'aan. nambarka xiga waxaa ku jira Sweden, Faransiiska, Boortaqiiska iyo sidoo kale Netherland oo ay raacdo Ireland, waxaana baasabooradooda lagu tagi karaa 186 dal iyadoo aan loo goosan wax fiisa ah. nambarka xiga waxaa ku wada jira Switzerland, Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Belgium, New Zealand. baasabooradoodana waxaa lagu tagi karaa 185 dal iyadoo aan loo goosan wax dalkugal ah. nambarka sideedaad waxaa ku wada jira wadamada kale ah Giriiga, Malta, Czech Republic iyo Australia, waxaana baasabooradooda lagu tagi karaa dalkugal la'aan 184 dal. nambarka sagaalaad waxaa ku jira baasaboorka Canada, waxaana lagu tagi karaa baasaboorkan 183 dal iyadoo aan loo goosan wax fiisa ah. nambarka tobnaad waxaa ku jira wadanka Hungary, waxaana lagu tagi karaa baasaboorka Hungary 182 dal iyadoo aan loo goosan wax dalkugal ah. qaybta ugu hooseysa waxaa weli kaalinta ugu dambeysa ku jira baasaboorka wadanka Afghanistan oo sanado badan ahaa kan ugu liita caalamka. haddaba bal isweydii kaalintee ayuu ku jiraa baasaboorka Soomaaliga? baasaboorka Soomaaliga ayaa isla sidii sanadkii la soo dhaafay 2020 noqday midka shanaad ee ugu liita caalamka, waxaana liiska ugu hooseeya 4 baasaboor oo kala ah baasaboorka Pakistan, kan Suuriya, kan Ciraaq
iyo midka Afghanistan. Kaalinta 102 ayuu kaga jiraa baasaboorada la daabacay baasaboorka Soomaaliga, waxaana dalku gal-aan lagu tegi karaa ilaa 33 wadan oo ku yaala caalamka. Pakistan ayaa baasaboorkeeda waxaa u sahlan in lagu tago 32 wadan, waxaana Soomaaliya ay Pakistan ka sarreysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Baasaboorka Suuriya ayaa dalku gal-aan lagu tegi karaa 29 wadan, iyadoo Ciraaqkeeda lagu tegi karo 28 wadan, halka midka Afghanistan lagu tegi karo 26 wadan oo kaliya. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii uu ku cajabiyo waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid, sidoo kale inaad channelka subscribe dhahdid oo aad nagu soo biirtid, waxay noo tahay dhiirigelin. Mahadsanid.